السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد أرضي 10 كني شناد chapter كيس الدحاد electromagnetic induction كا. حسده هو وحن كسر هذا اللي DC إيه AC محيكو كل دوينهين بان سوكر صارني يصير الشقيان. وكم لها application of electromagnetic induction DC generator إيه AC generator. AC generator كا وكان أن كدشنا كرنتدا مقالوين كإنه كشرته power stations كإنه يعلم. سيدو كله وحنو كسر هذا اللي application كsmall scale applications كله يقانو وكم لها microphone وكم لها تصال أهان باسكيل دينامو أو كله أي كم لها هاي. هذا ما أنت وحن دقن دونا سلا كاجا مقطعوان كا mutual induction and transformers. حبك ساقد وذاق يدوري ياشا. And at the end of the lesson, learners will be able to explain the concept of mutual induction, especially in transformers. هذا ما أنت 10 كبر كده معه أرضية وحلاقة ربع إنه شرحات كبحيو فهم جود وكهيستو ساقد ولاق محيط هاي جراهان مركلاقة هذا دوري ياشا. سيدو كله state the types of transformers أرضية إنه شيء كرو أو كلا يغانو نوعية دوري ياشا. sidoo kale ardaygu inuu isticmaali karo use the principle of transformers to solve numerical problems inuu isticmaali karo xeerka ama jidka dooriyayaasha soo u xalliyo su'aalaha uga shaqeyn karo inuu jidka isticmaali karo okay hadaba mutual induction waa maxay saaqid wadaag mutual induction af Soomaali waxa lagu dhahaa saaqid wadaag waa transformer effect baa la yiraahdaa habka dooriyayaasha loo yaqaan mutual induction ka maxay tahay marka mutual induction Mutual induction is a process of changing magnetic fields due to one coil which induces current in neighboring coil not connected to it. Mutual induction waxaa loo yaqaanaa isbedel badadbarlabeedka ku dhaca duubka hore kaasoo sababa in koronto ay ku saaqanto duub kale oo dariskiis ah ag yaala laakiin aan isaga ku xidhnayn laba duub oo is ag yaala marka mid magnetic field kiisa wax laga bedelo mid kale oo isaga ag yaalo aan ku xidhnayn inay koronto ku saaqmato ayaa waxa loo yaqaanaa mutual induction okay tusaale bal halka u fiirso halkaas sida sawirka kaaga muuqata waxaynu haysanaa laba duub baynu haysanaa kan hore waxa ku xidhan cell baa ku xidhan koronto raacaysa duubka hore duubka dambe sida kaaga muuqata waxa ku xidhan galvanometer saacad galvanometer baa ku xidhan waxay sheegaysaa saacadaasi marka magnetic field ka duubka koowaad wax laga bedelo in duubka labaad koronto ay ku dhalanayso inoo sheegaysaa hadaba when switch is closed in the first coil immediately marka daaradamiyaha la shido duubka hore isla ilbriqsigaba waxa la arkayaa the change in magnetic flux induces current in the secondary coil isbedel barlabeedka marka korontada sida loo shido sameysmaya waayo korontada marka la shido waa sidii inay steering noqotay rabtaa warka way soo xoogaysanaysaa saa darteed waxay leedahay increasing magnetic field which passes through the second coil magnetic field kaas wuxuu dhex marayaa duubka labaad and it causes a current to induce in the secondary coil wuxuuna sababayaa in koronto lagu saaqo duubka labaad halka hadda u fiirsada waxaynu haysanaa tani waa fast coil okay fast coil kaas waxaynu ugu duuban wire baa inoo ku duuban okay wire kaas wuxuu inoo ku xiran yahay cell waxaynu haysanaa switch haddaba markaynu sidaa switchka u shidno duubka hore koronto raacaysa korontadaas sayna hore u soo xusnay bayteriga waxay ka tagtaa had iyo jeer dhanka positive-ka ah oo positive terminalka waxa loo qaataa sawir ahaan dhanka dheer okay xaggana marka ka soo laabanaysa marka duubka hadda wire ku eg coil-ka dhanka kane xagga shisho ka maray saa markuu saas ugu soo duuban yahay marka korontadii saatani u soo socotaa duubka day okay waayahay halkan marka waxa inoo yaala duub labaad baa inoo yaala okay duubka labaad isagana waxay inoogu duubaa coil-ka labaad okay oo isagu kuma xidhna source of electricity kuma xidhna laakiin wuxuu ku xidhan yahay galvanometer
galvanometerku waa device which is used to indicate small current koronto yar buu cabiri karaa waa saacad korontada cabiri karta marka u fiirso currentigu markaynu sidaa u shidno currentiga magnetic fieldkeedu wuu soo xoogaysanayaa jihada korontada marka waynu haysanaa faraheenu hoos bay u jeedaan isticmaal haddaba right hand grip rule si aynu u ogaano magnetic fieldka currentigaas ay soo saarayso saasaynu u qabanaynaa dhan kale marka wuxuu noqonayaa meesha farsuulku u jeedo had iyo jeer baa waxay tahay north pole okay xagna wuxuu noqonayaa south pole haddaba currentigaas waxay soo saartay sidaad ka aragtid magnetic fieldkaas baa wuxuu jarayaa duubkii labaad buu ka gudbayaa duubkii labaad markuu ka gudbo wuxuu la mid noqonayaa sidii birlab inta la soo qaatay la soo dhaqaajiyo duubka saa loo dhexgeliyay marka korontadu ay soo badanayso saa darteed maadaama la helay change magnetic field when switch is closed marka switchka sidaa loo xidho haddii change magnetic field uu jiro oo increasing magnetic field baynu haysanaa oo la mid ah sidii birlab soo socoto oo kale inagoo isticmaalana Lenz's law ayaynu waxaynu go'aan ka gaari karnaa jihada korontadu ay u raaci karto duubka labaad eeg waxaynu niri Lenz's law wuxuu ku lahaa magnetic fieldka korontada ku dhaliyay duubka labaad ee isbedelka sameynaya korontada dhalatay waxay soo saartaa had iyo jeer magnetic field isaga opposite ku ah marka magnetic fieldka kan waa north pole soo xoogaysanaysa waxay la mid tahay bar magnet sidii birlab oo kale aynu soo dhaqaajinay oo aynu coilka ku soo wadno currentiga halka ku dhalanaysa waxay soo saaraysaa magnetic field opposite ku ah ka iyada sababay haddaba north pole-ka maxaa opposite ku noqon karo dib isaga celin kara north pole xagana waxay noqonaysaa north pole okay kana maxay noqonaysaa south pole seebaynu u qabanaynaa marka farsuulka waxaynu u jeedinaynaa dhanka north pole-ka waxaynu eegaynaa meesha faraheenu u jeedaan day saasaynu u qabanaynaa markan north pole-ka aynu samaysanay farsuulka u jeedi farahana okay marka faraheenu maadaama ay kor u jeedaan duubkan currentigu xagganay u raacaysaa okay shishe xagganay ka soo baxaysaa okay saacadda galvanometerku waxay u dhaqaaqaysaa right side halka marka fiiri labadii coil maadaama north pole and south pole ay meesha noqdeen oo magnetic field opposite ku ah meesha ka samaysmay the motion is opposite waxay isku noqonayaan opposite oo repulsion bay sameynayaan oo midna sidii wax xagga loo dhaqaajinayo midna xagga loo dhaqaajinayo kale motionka opposite buu isku yahay marka sidii Lenz's law aynu ku soo aragnay haddaba waxaanu yiri when switch is closed marka switchka sida loo xiro in the first coil duubka hore the change in magnetic fieldka soo xoogaysanaya marka korontada la soo shido oo la mid ah sidii birlab la soo dhaqaajiyo oo kale induces current in the second coil duubkaasoo koronto ku saaqaya labaad korontada duubka labaad lagu saaqayna inagoo Lenz's law isticmaalayno jihadiisa aynu helaynaa halkaas waa weeyaan waa qodob okay haddii switchki ka soo qaad when switch is open switchki baynu furnay eeg switchka markaynu sidaa u jarno korontadii way sii daciifaysaa way sii tegaysaa korontadii saa darteed magnetic fieldkeeda wuxuu noqonayaa decreasing magnetic field buu noqonayaa marka marakan fiiri okay decreasing magnetic field tani waa sax magnetic fieldkeedu magnetic poleskeedu waa sideedii laakiin waxa weeyaan waa decreasing magnetic field north pole-kaas magnetic fieldkeedu wuxuu la mid yahay sidii birlab la sii dhaqaajiyay oo kale xaggan loo dhaqaajiyay oo kale marka la mid yahay marka korontada la damiyo sababtoo ah korontada way sii tagaysaayo fiilkeedana wuu sii yaraanayaa haddaba saynu ku soo aragnay Lenz's law magnetic field sii daciifaya wuxuu sababayaa koronto inuu wire-ka ku saaqo haddaba si magnetic field-ka steady looga dhigo currentiga halka ku dhalatay waxay soo saaraysaa magnetic field-ka sii tagaya opposite ku ah marka north pole sii socota maxaa ku soo dhigi kara oo soo qaban kara south pole dhanka kale waxay noqonaysaa south pole bay noqonaysaa kana muxuu noqonayaa north pole okay si aynu ogaano marka birlabta la sii dhaqaajiyay jihada wire-ka korontadu ay u raacayso sidoo kale wali waxaanu isticmaalaynaa Lenz's law-gii aynu soo aragnay eeg inta waxaan u qaadanayaa waxaan u jeedinayaa farsuulka farahaygu meesha u jeedaan baan eegayaa fiiri marka eeg faruhu xagee hadda u jeedaan hoos currentigu xagganay u raacaysaa wire-ka sii raac hoos kor saacaddu waxay u dhaqaaqaysaa the needle deflects in opposite direction when switch is closed habkan noo adaba fiiri marka aynu sameynay magnetic field-ka aynu wax ka bedelay oo switch-ka aynu shidnay ama aynu daminay ayaa markiiba koronto waxay ku saaqmaysaa duubka labaad
habkaas labada coil oo is ag yaala laakiin aan isku xidhnayn marka magnetic field-ka ta koowaad wax laga bedelo ta labaad koronto ay ku saaqmayso ayaa waxa loo yaqaanaa mutual induction loo yaqaanaa. Okay, haddaba when current reaches its maximum value, the magnetic field becomes steady and no EMF induced. Haddii switchka markaynu saa u xidhno aynu dayno dee current-ga meesha maraysa waa direct current. marka ay soo mareegta aynu saa u soo shidno oo ay gaadho qiimaheeda ugu sareeya waxay noqonaysaa direct current. Magnetic field-keedu wuxuu noqonayaa steady. So steady magnetic field doesn't cause or induce current into the coil. Haddii magnetic field-ku marka uu steady noqoto koronto lama saaqo. Therefore EMF is preferable to use in the input coil. Had iyo jeer waxa la isticmaalaa AC, and AC is used in the input coil. Coil-ka hore had iyo jeer waxa lagu xidhaa danabhayaan talantaaliya baa lagu xidhaa. Danabhayaan talantaaliga oo direct current-ga dee markay gaadho qiimaha ugu sareeya xaddigeeda ugu sareeya markay gaadho steady bay noqonaysaa. Magnetic field-keeduna wuxuu noqonayaa steady. koronto marka ku saaqo mayso duubka labaad. Ilaan duubka labaad si koronto loogu saaqo waa in la helaa change in magnetic field. Okay, halka marka waxaanu isticmaalaynaa AC baynu isticmaalaynaa. AC current-ga saynu shalay soo aragnay markaynu AC generator-ka soo sharaxaynay waa koronto jihadeedu isbedbedesho marba dhinac ka timaado. Markastoo jihadu isbedeshana magnetic field-ki baa isbedelaya. Markastoo magnetic field-ku isbedelana duubka labaad baa koronto lagu saaqaya. Saa darteed baa input-ka coil-ka waxaa loogu isticmaalaa in alternating current in la isticmaalo. Waayahay haddaba if iron core is inserted through two coils, the effect of mutual induction is increased. Haddii iron core la isu geliyo labada duub oo halkaynu hal duub aynu ka isticmaalayna laba duub oo is ag yaala ama ay ahaayeen haddaynu intaynu soo qaadano iron core aynu labadii waayirba aynu ku xidhno kii source-ka inoo ku xidhnaa iyo kii tusaale ahaan ag yaalay oo galvanometer-ku ku xidhnaa labadaba haddii la isugu xidho iron core arrinta saaqid wadaagu way fiicnaanaysaa oo koronto xooggeedu uu ka badan yahay tii hore baa duubka labaad lagu saaqayaa. sababtuna waa maxay? iron core-tani dee waxay noqotay birlabtaasina waxaa ku xoogan oo ku badan magnetic field-ka. Why iron core is important to insert both coils? maxay iron core-taas ugu fiican tahay in labada waayirba la isu geliyo? Because the iron core because the field lines are concentrated in the core. Magnetic field-ku wuxuu ku xoog badan yahay lafta buu ku xoog badan yahay. Saa darteed magnetic field xoog badan oo kii ku xoog badan baa jaraya markay waayirku wada duuban yihiin. sidoo kale waxaa muhiim ah iyadana inaynu ogaano maxaa markaynu ogaanay haddii magnetic field-ka duubka hore wax laga bedelo duubka labaad korontaa ku saaqmaysa arrintaasi maxay adduunka ku soo kordhisay oo laga faa'iidaystay? physics-ku waa applied subject weeyaan, waa maado waxa weeyaan la isticmaalayo weeyaan. laba waayiroo is ag yaala korontada marka kan wax laga bedelo kan korontaa ku saaqmaysa adduunka maxay ka bedeshay? Uses of mutual induction waxaa loo adeegsadaa transformerska dooriyayaasha. sidaa sawirka ka muuqata dooriyayaasha waxaa loo isticmaalaa shirkadaha magaalooyinka korontada geliya oo markaad magaalada dhex marisid waxaa laga yaabaa inaad ku aragto baalayaasha waxaad sanduuq weyn moodido waayiro fara badan ay gelayaanoo magaalada dhex yaala waa transformers weeyaan. maxay qabanayaan? awood waxaa loo yeeshay transformerska iyadoo la isticmaalayo marka loo baahdo korontada jidka in laga sii kordhiyo in la sii badin karo. tusaale waxaad ka soo qaadaa webiga jubbada hoose ee Soomaaliya ayaa koronto laga dhaliyay. korontada waxaa la rabaa Soomaaliya oo dhan ilaa waxa weeyaan raas casayr ilaa raas kamboni in korontada la geliyo oo loo qaybiyo. haddaba korontadaasi ka soo qaad markay ay gasho tusaale ahaan Kismaayo oo kale la geliyo ay ka soo baxdo la rabo magaalada kale ku dhow in la geliyo korontadii magaaladii baa loo qaybiyay oo waa yaraanaysaa. waxaa la rabaa in la sii xoojiyo marka jidka laga sii kordhin karaa oo korontada waxa laga badin karaa xooggeeda intii markii hore ay ku soo dhalatay. transformersku marka faa'iidadaas ay leeyihiinoo marka korontada loo baahan yahayna jidka laga sii kordhiyaa haddii la rabo magaalooyin kale iyo xaafado kale in la sii geliyo. marka aan loo baahnayn la rabo in la iska yareeyana iyadoo dooriyaasha la isticmaalayo
baa la iska yarayn karaa haddaba waa maxay transformer transformer is a device change the magnitude of AC voltage dooriyuhu waa aalad wax ka bedesha laxaadka ama cabirka xoogdan wadaha talantaaliga ah saa darteed transformerska looma adeegsado direct current-ga sababtoo direct current-gu waxa uu magnetic field-keedu waa steady transformersku waxay u baahan yihiin waa laba duub buu ka kooban yahay saa darteed wuxuu u baahan yahay in duubka hore magnetic field-kiisu uu isbedbedelo saa darteed ba alternating current loogu isticmaalaa symbol-kiisa waxaynu u soo qaadan doonaa transformerska calaamadaas electrical symbol intaynu sawiri lahayn sanduuqa weyn electricity-ga markaan isticmaalayna symbolska internationalka transformer consists of two coils wound on an iron core and uses the principle of mutual induction sidaa kaaga muuqata sawirkaas transformersku wuxuu ka kooban yahay laba waayir ama laba duub oo ku duuban laf iron ah ku duuban wuxuuna isticmaalayaa habkii mutual induction ku isticmaalayaa oo marka duubka hore magnetic field-kiisu isbedelo ayaa duubka labaad koronto lagu saaqayaa saa darteed baa transformersku AC current-ga aynu leenahay baa loogu adeegsadaa haddaba duubka hore u fiirso input coil input voltage duubka ku xidhan voltage-ka source-ka ka yimi waxaa loo yaqaanaa primary coil duubka hore duubka dambena waxaa loo yaqaanaa output voltage-ka ku xidhan ee tusaale ahaan qalabkeenu isticmaalayna inoogu xidhanna waxaa loo yaqaanaa secondary voltage baa loo yaqaanaa okay secondary coil baa loo yaqaanaa duubka dambe baa loo yaqaanaa haddaba types of transformers waa imisa there are two types of transformerska laba nooc baa loo qaybiyaa step up and step down dooriyo kordhiye ah baa la dhahaa iyo dooriyo dhima ah midna xooga korontadu kordhiyaa midna xooga korontada buu yareeyaa waa yahay step up transformer u fiirso dooriyaha kordhiyaha ah maxaa ku garanaysaa inuu yahay step up transformer the number of turns in the primary coil is less than the number of turns in the secondary coil step up-ka duubka hore baa ka yar duubka dambe saa darteed number of turns baan waxaan usoo gaabnay in the primary NB is less than number of turns in the secondary NS input voltage in the primary voltage is less than also the output voltage in the secondary sidoo kale haddaba taas waxaan ku garanaynaa inuu yahay step up transformer voltage-ka input-ka ah baa had iyo jeer wuxuu ka yar yahay output voltage-ka soo baxaya xoogdan wadaha soo baxaya duubka horena wuu ka yar yahay duubka dambe maxaa loo adeegsadaa oo lagu falaa step up transformer step up transformer is used to increase the output voltage waxaa loo adeegsadaa korontada xoogeeda inuu sii badiyo oo sii xoojiyo waa yahay step down transformer waa maxay step down transformer maxaan ku garanayaa isagana number of turns in the primary coil is more than the number of turns in the secondary coil eeg hadduu yahay step down duubka hore baa ka badan duubka dambe haddii duubka dambe yaraado marka waa step down saa darteed baa voltage-ka primary-gu wuxuu ka badan yahay voltage-ka secondary-ga isagana maxaa lagu falaa isagana step down transformer-ka maxaa lagu falaa step down transformer is used to decrease the output voltage waxaa loo adeegsadaa inuu yareeyo xoogdan wadaha soo baxaya inuu yareeyo baa loo adeegsadaa okay haddaba for a transformer waxaanu isticmaalaynaa ratio-da turns-ka primary turns-ka oo loo qaybiyey secondary turns-ka baa waxay la eg tahay primary voltage-ka oo loo qaybiyey secondary voltage if the transformer is 100% efficient haddii boqolkiiba boqol uu efficient yahayo input voltage-ki input power-kii loo gudbiyey output power-ka laga dhigay marka maxay u taagan yihiin xuruuftaasi aan raacinay ee formulada halkaas dhinaceeda ka eego haddaba sidoo kale output voltage-ka wasna wuxuu la ekaanayaa input voltage oo macnihii output power sorry halkaas waxa weeyaan output power-ka wuxuu la ekaanayaa output power weeye meeshaas baa waxay la ekaanaysaa input power eeg powerkii meesha la soo geliyey baa kii soo baxay la ekaanaya haddii waxba aanay ka lumin okay saasaan isagana marka waxaan ku bedelaynaa input power-ka waxaan ku helaynaa BV baa waxay la mid tahay input power-ka waxaan ku helaynaa primary voltage oo lagu dhuftay primary current IB VB
secondary powerna waxaan ku helaynaa voltageka secondaryga oo lagu dhuftay currentiga secondaryga aan ku helaynaa haddaba tusaalaha u fiirso eeg waxa lagu dhahay waxaad xisaabisaa duubka dambe adoo informationka sawirka lagu sii isticmaalaya formulada ku badbedelo okay formulada ku badbedelo adoo sawirka isticmaalaya waxaad ku badbedelataa formulada ku badbedelo waayahay haddaba haddaan intaa isla soo garanay waxaanu soo dhignay waa maxay mutual induction waa maxay transformers imise nooc bay ku kaba yihiin maxaa lagu kala garanayaa formuladan isticmaalayno saan u xisaabina maxay tahay su'aalaha marka ka shaqeeya Thank you very much.